intimidated by terrorist organizations. Second, xaqiiqdii waxaan u maleynayaa in marka hore ay muhiim tahay in madaxweynaha Mareykanka ay ka go'naato in uu booqdo geeska Afrika iyo wadamada adduunka oo dhan iyo meelaha looga boqo ururada argagixisada. Midda labaad waxaa jira kala horeyn xagga booqashada ah xagga wada shaqeynta oo Mareykanku uu la leeyahay wadamada Afrika sida Kenya, Uganda iyo wadamada bariga Afrika. waxaana ka wada dhaxeeya wada shaqeyn xoogan oo dhinacyo badan leh. Booqashadaani waxay isku day wanaagsan u tahay kuwa soo booqan doona qaaradda. Wada shaqeyntan xoogan ee ka dhaxaysa wadamada Mareykanka, Kenya iyo Uganda waa mid aad u xoogan oo lagu soo qaadi doono shirarka aan wada gali doono aniga iyo madaxda aan dalkooda booqanayo. midda saddexaad dhamaashadaha awoodda xilkayga madaxtinimo waa ay sii idlaanaysaa. waqtiyo kala duwan ayaan Afrika booqday. waxaa jira tiro badan oo booqanaysa dalalka Afrika. arrintan waxay fursad u tahay diirad saaridda dhaqaalaha Afrika iyo kobciisa. tani waxay sii horseedi kartaa in fursad aan u helo in aan booqdo wadamo aan marar badan booqan oo aan markaa hadda booqanayo. waxaan aaminsanahay in tani ay tahay markii ugu horeysay oo madaxweyne Mareykan ah uu booqdo dalalka Kenya iyo Ethiopia. waxaa jiri doonta khudbad aan ka jeedin doono shirka midowga Afrika ee dalkaasi. marka waxa wanaagsan ayaa inoo hagaagi doona. But this gives me an opportunity to focus on a region that I have not been visiting as president, and I'm also going to have the opportunity to talk to the African Union. So I'll be the first U.S. president to not only visit Kenya and Ethiopia, but also to address the continent as a whole, building off the African summit that we did here, which was historic and has, I think, deepened the kinds of already strong relationships that we have across the continent. The Muslim world. waxaa lagu wadaa inaad ka hadasho shirka ganacsatada ee la filayay inuu ka dhaco wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. ma jiraa xiriir u dhaxeeya ammaanka iyo ganacsiga? I think there is. I believe that when people see opportunity, when they have a sense of control of their own destiny, then they're less vulnerable to the propaganda. waan u maleynayaa inay jiraan waan aaminsanahay markii dadku ay arkaan fursad iyo waliba markii ay awoodaan in ay maamulaan mustaqbalkooda. waxa ay yareynaysaa in ay beelaha u noqdaan waxyaabaha cabsi gelin kara jiilka. waxaa sidoo kale hadda iyagoo ay si weyn u isticmaalaan baraha social media oo dhalinta ay hadda si baahsan u isticmaalaan, waa macquul in iyaga xoogga la saaro. hadda ka hor waxaa noo soo baxday jiho iyo mowduuc israacsan mar aan arrimaha wadamada caalamul islaamiya aynu diiradda saaraynay. waxaana mowduucaasi uu ahaa in dadku ay aad u daneeyaan in hamigooda iyo wacyiga sare loo qaado. waxaana ay ka cararayeen in la taageero had iyo jeer. waxaana noo caddaatay waddo saxan oo loo baahan yahay. waxaan aaminsanahay dhiirigelinta Mareykanka inay horseedi doonto wax badan oo ganacsatada ay u baahan yihiin, gaar ahaan kuwa Afrika oo u baahan dhiiranaan ganacsigooda xogta ah. waxa aan aaminsanahay in ay jiraan in loo baahan yahay in la eego musuqmaasuq, in la fiiriyo lana xaqiijiyo in shuruucda aysan noqon kuwa loo qaabeeyo in dadka sare oo kaliya ay ka faa'iideystaan, balse sidoo kale loo ogolaado in dadka hal abuurka leh ay ka sii qayb qaataan oo ay ka dhex muuqdaan. The more they have hope. Now that requires some reforms in these governments that we continue to emphasize, rooting out corruption, increased transparency in how government operates, making sure that regulations are not designed just to advantage elites, but are allowing people who have a good idea to get out there and get things done, or being patriotic. mudane markii aad booqatay wadamada qaaradda Afrika kol hore waxa aad sheegtay in loo baahan yahay hay'ado awood leh balse aanay loo baahnayn rag awood leh. sidaan ka warqabno waxaad ku sii jeedaa wadanka Ethiopia. waxaan ognahay in baarlamaanka wadankaas uusan ku jirin xubin mucaarad ah. Kenya ayaad ku sii jeedaa oo maxkamadda dambiyada caalamka ay baarayso rag dowladdaasi ka tirsan oo musuqmaasuq lagu soo eedeeyay. soo ma muuqanayso hay'ado wax xiriir la leh inaysan jirin? Well, they're not ideal institutions, but what we found is that when we combine blunt talk with engagement, that gives us the best opportunity to influence and open up space for civil society. xaqiiqdii ma aha kuwo halkaasi gaarsiisan. waxaanu wada ognahay in ay midaysay
fikrad wax dhaadhicin karta. Waxaan kaloo filaynaa in hadafka xuquuqda aadanaha uu yahay mid aad u wanaagsan. Waxaa tusaale weyn noo noqon kara dalka Burma. waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay oo Mareykan ah oo booqda. Markii aan tagay waxa uu u muuqday dal dimuqraadiyad u firfircoon. waxaa jiray xadgudubyo xuquuqda aadanaha. booqashadii aan ku tagay ayaa waxaan aaminsanahay in ay waxaasi oo dhan ay ii furfurtay. markii aan booqday waddanka Shiinaha iyo Ruushka ayaa waxa aan doonayay in safarkayga uu noqday si la mid ah dalalkaasi oo horay u booqday fikirkaasi oo kale, si aan u muujiyo una taageero jihada wanaagsan oo ay inoogu suurto gasho si aan ula sheekaysano ugana tilmaano jihada toosan. So our view is in the same way that I visit Russia, in the same way that I visit China, even when we know that there are significant human rights violations taking place, we want to make sure that we're there so that we can have this conversation and point in a better direction. dalka Shiinaha saameyn xoog badan ayay ku leeyihiin qaradan Afrika, gaar ahaan waxay dhiseen xarunta midowga Afrika oo adiguba khudbad aad ka jeedin doonto. wadooyinka tareenadu ay maraan ay waxyaabo kale oo fara badan oo aan la xaqiri karin. arrimahaasi bal ka waran. Well, what is true is that China has, over the last several years, because of the surplus that they've accumulated in global trade and the fact that they're not accountable to their constituencies, have been able to. waxaa xaqiiq ah in waddanka Shiinaha uu sanadihii faraha badnaa ee la soo dhaafay in uu faa'iidooyin badan ay ka qaateen wadamada caalamka. waxaa kaloo ay yihiin kuwa aan raalli ka ahayn wada shaqaynta dadkooda. waxaana aan aqoonsanahay in ay wanaagsan tahay in Mareykanku uu halkaasi joogo si uu dhiirigelin ugu sameeyo. waxaa badeecooyin ceerin uu ka abaabulaa Afrika si lacago uu ugu bedesho. waxaan taabacsanahay in aan nidaamkaasi aan taageero oo aan markaa niyad jabiyo. waxaan horey u sheegnay in ganacsiga uu u faa'iideeyo dadka oo dhan, sida dadka u dhashay waddanka Kenya, Guinea iyo dhammaan dadka Afrika. marka la eego Yurub, Afrika iyo qaramada midoobay waxay u wada shaqeeyaan si wada jira. And not just a few elites and the Chinese who then get the resources that they need. And I think that we can help to shape an agenda where China, Europe, and the United States are all working together in order to address some of these issues. waxaa jira qodobo adag oo hadda aan muujin karno, kuwaas oo ku soo wajihi kara markii aad Kenya aad tagto. qodobadaas waxaa ka mid ah qodob ku aadan guurka labada qofood ee isku jinsiga ah, mathalan ragga isguursada oo maxkamad kol hore ay xukmisay. madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto oo la filayo inaad la kulanto waxa uu sheegay in Mareykanku uu ogol yahay guurka ragga isguursada iyo waxyaabo kale oo badan oo aan wanaagsaneyn. arrimahaas bal ka waran. Well, I disagree with him on that, don't I? And I've had this experience before when we visited Senegal in my last trip to Africa. I think that the president there, President Sall, is doing a wonderful job. And xaqiiqdii kuma aanay raacin arrintaasi. innaga tani oo kale waan la kulannay markii aan booqday dalka Senegal, waxaana ay ahayd safarkii ugu dambeeyay ee aan ku gaaro Afrika. shir wada jireed ayaan ugu sheegay in qof walba uu helo sharci iyo cadaalad. ma ihi shaqsi ku farxa cadaadiska qof xur ah iyadoo la raacayo isir ama diin. anigoo qoyskayga qayb ka mid ah Afrika, gaar ahaan Kenya ay joogaan, waxaan aaminsanahay in dadka si siman loola dhaqmin. haa, way jirtaa arrintaasi. cadaaladaasi waxaa mudan ragga oo in la siiyo mudan. has family in Kenya and knows the history of how the country so often is held back because women and girls are not treated fairly. Those same values apply when it comes to different sexual orientation. So our view is in the same way that I visit Russia, in the same way that I visit China, even when we know that there are significant human rights violations taking place, we want to make sure that we're. You see a lot of, they're pretty good generally. Here at the moment. Well, here they're not bad. I think that my global approval rating probably is a tad higher than my U.S. one, but obviously I've got a. Thanks for being with us on this BBC News special. I'm John Sopel at the White House.